muddo ka badan 27 sano kadib maanta ayay dib ugu soo laabteen shaqaalaha wasaaradda duulista hawada ee ka howlgali jiray xarunta duulista hawada ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya. shaqaalahan oo tiradoodu ay gaarayaan 34 shaqaale oo 4 kamid ay yihiin shaqaale ajaanib ah ayay maanta dib ugu soo laabteen waxaana garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ku soo dhaweeyay wafdi oo horkacaya wasiirka wasaaradda duulista hawada Maxamed Cabdullaahi Omar. shaqaalahan intooda badan ka howlgalaya muddo 20 sano ka badan xarunta wasaaradda duulista hawada ee magaalada Nairobi ayaa waxay aad ugu farxeen qaabka quruxda badan ee lagu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho. marka maanta waa maalin weyn oo magaranaysa wasiir Omar iyo ragiisuna juhdi badan ayay ku bixiyeen oo ilaa maalintii uu soo Nairobi noogu yimi wuxuu dabada hayay in hawshaas la soo celiyo Yusuf oo gaasimaha isaguna aad buu ugu dadaalay yani kulligood maalin walba waxay ahayd issue qaran oo ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo maalin walba involved ay ka ahayn arintan alxamdulillah maanta waxay joogtaa in shaqaalihii maanta yimaadeen tababarkii ayaa asbuucan bilaabanaya annagana aan diyaar u ahayn inaan shaqadaas aanu wadno oo hawada Soomaaliyeed ay ahaato safe oo cid kasta oo nabad ay ku dulmarta marka waxa weeye maanta alxamdulillah wasaaradda iyo wasiirka iyo dawladda federaalka waxay ku guuleysatay in ay dib u soo celiso adeegii iyo service-ka laga bixin jiray Nairobi in laga bixiyo magaalada Muqdisho International Airport. wasiirka wasaaradda duulista hawada Galmudug Cabdullaahi Cali Maxamed oo halkaas isna ku soo dhaweeyay shaqaalaha wasaaradda duulista hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya ee ka howlgali doona dhawaan magaalada Muqdisho ayaa ku bogaadiyay shaqada wanaagsan ee u hayaan bulshada Soomaaliyeed inay si laba jibaaraan. waxaan la rajaynaynaa dhammaanteen in dhawaan wax allaale iyo wixii hawadan la xiriiray hadday tahay dhaqaale hadday tahay aqoon hadday tahay farsamo yaqaan intaba in dalkeenna hooyo laga maamuli doono waxaan leeyahay dhammaan dadka isticmaala hawada sida diyaaradaha in aysan ka walwalin Soomaaliya laga maamulayo markii la yiraahdo waxay dhaheen Soomaaliya maxay taqaanaa awalba dal shisheeye ka shaqeynayeen maahane dadka ka shaqeynaya Soomaali bay ahaayeen maantana waxay yimaadeen dalkoodii hooyo oo ina ka shaqeyn doonaan hadii alla yiraahdo. wasiirka wasaaradda duulista hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Omar oo in muddo ku hoolanaa sidii dib loogu soo celinay shaqaalahan wasaaradda duulista hawada ka gadaal markii kol hore dib loogu soo celiyay hawada Soomaaliya caasimadda magaalada Muqdisho halkaas laga maamuli doono waxa uu sheegay in juhdi badan ay ku bixiyeen madaxda ugu sareysa dalka sidii dib loogu soo celin lahaa shaqaalahan sida tooska ugu shaqeyn jiray dawladda Soomaaliya. 34 qof oo shaqaalahaas ilaa ay 34 qof shaqaalahaas kamid ah ayaa maanta waxay u soo guureen wadanka gudihiisa si permanent ah joogto ah ayay wadankani ugu soo guureen waxa maanta marqaati laga yahay in soo wareejinta hawada Soomaaliya oo aanan ahayn wax sahlan ay reality noqotay oo maanta ay dhab tahay shaqaalihii khubarada ahaa Soomaali ah oo deganaa wadanka Kenya intaasoo sano inay hadda soo guureen maanta ka bilaabatana wadanka gudihiisa ay degan yihiin lagana maamulayo wadanka hawada Soomaaliya in laga maamulo wadanka gudihiisa maanta inay reality tahay. dhanka kale wasiirka wasaaradda duulista hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Omar iyo wafdi ballaaran oo hogaaminaya ayaa waxay maanta xariga ka jareen xarunta cusub ee ku nasan doonaan shaqaalaha cusub ee maanta dib ugu soo laabtay ee wasaaradda duulista hawada waxaana uu sheegay wasiirka in wasaaradda ay dadaal dheer ugu jirto sidii kor loogu qaadi lahaa tababarka iyo tayeenta shaqaalaha wasaaradda maadaama xaruntan ay u furan tahay shaqaalaha wasaaradda oo kaliya shaqaalaha soo guuray dad khubaro ah technically dhisan hawada Soomaaliyana muddo maamulayay waxaan ku soo dhaweynaynaa Soomaaliya ayaan ku soo dhameeynaynaa waxaan leenahay soo dhawaada gurigana waa gurigoodii ay degi lahaayeen haddii Ilaahay ka raali noqdo intooda rabtay inay magaalada degtana waa sidoo kale waan soo dhaweynaynaa aad baan ugu faraxsanahay runtii inaan maanta xafladan ka soo qayb galno soo dhaweynta shaqaalaha hawada Soomaaliya maamulaya aad baan u mahadsantahay. Cabdikariim Maxamuud Shidan warbaahinta dowlad goboleedka Soomaalida Jubbaland magaalada Muqdisho.